etaa baralelo to proclame kumbani kulalihi dayacan dalkiya dadka u dara baari bay wareegaysaa waxay ugu maqalaa inay baryahan galab kasti u carowdo aqalkii Cabdiraxmaan Boore oo shaah ka soo cabto aqalkii Cabdiraxmaan Boore ku cindan tahay waxay ugu cindan tahayna ana inii sheegay xeela xabata sooda waxa xun oo dhan iyada falkisa iyada fulisa waxay doonaysaa Cabdiraxmaan Boore ay shalay cawda u jartay ay xiliyo xoolo wuxuu lahaa ay dareersatay ay markii dambe ina geelaarab u dhiibtay ina geelaarabna haddana ka dareersatay haddana qolo kale u sii dhiibatay wixii bay doonaysaa inay maslaxato isa sabatay tiraah waan heshiinayna aqalka Cabdiraxmaan Boore galab kasta shaah ay u doonataa ee baari runayna runbeerayna been reejibuto iga maqla marka maxay maagan tahay sheeko waxay ku soo goysay shuqlaysaa Cabdiraxmaan wadan jagada ku dhiibayna adan talada kaaga tagayna ma kuwana tala ka taga ma kuwana kursigu ma isku dhiibid ba anda isaga shalay loo dhiibo daaqad ka soo galay ma oo ragii ku xaq lahaa loo luqun jibaaray uu been ka sheegay maantana wuxuu rabaa inuu Cabdiraxmaan Boore shabakada soo galiyo haba soo gashaan shalay iyaga isdiiday annagu shaqo kuma lihin waa nin baayac mushtara shaqo kuma lihin sigaarkiisi waa loo furay beesalkii waa la siiyay inankiisi calana waa ka Jabuuti jooga maba ka xumin laakiin su'aal baan weydiinay Cabdiraxmaan Boore intee in leeg bad kalsooni ku qabtaa etaa baraleel inay aqalkaaga dhex timaaday shaah ka cabto ila way ku mid yeelisanaysaa miciyahay kugu haysaay taasi waa mid su'aasha labaad waxa weeyaan shalay wixii aad isku diideened maxkamadaha Ingiriiska kaga guuleysatay intaas oo milyaar ku baxday masahal baad ku ilowday waa talabaad midda saddexaad kursigan lagu leeyahay waan ku dhiibaynaa wax la isku dhiibay ma jirtade taana ku taglagal ummadda reer Jabuuti cid ay u aragto inay iyaga dan u tahay iyaga dooranaya go'aankana ummadda reer Jabuuti baa male iyagu waa been yaan been lagu sheegin ballan ma galaan buufis bay qabaan inay buufis qabaanna waxa xaqiiqdiya wixii shalay idin kala gaaray maanta sida ay ku masaxaneen dhulka isku dhigeen danbay leeyihiin marka ay danta leeyihiin xarkaha daadiyaan xarkaha ayay dadka u daadiyaan khaytadaha u daadiyaan markuu qofku dabinkooga soo galana ma jiir dabin soo galay bay kaga dhigaantay marka waxaad noqonaysaa jiir dabin soo galay lagu cafin maayo saliilduus baa lagu geysanday marka annaga waxba nagama gelin dhexdiinu nama qaado shalayna idinka heshiisa maantana idinka maaragtay kala tagay laakiin waxaan ku sheegay Cabdiraxmaan Boore umada reer Jabuuti ha hoodi Yonis Muuse isoo sasabuku Yonis Muuse halkee la dhigay xagee la dhigay de marka adiga maanta la doonayo inaad soo sasabto ma ii sheegi kartaa dhiigoodii halkee la dhigay dhacaakoogii halkee la dhigay reer loo roon yahay oo Jabuuti jooga ay ma jirto walaa Cafar walaa Ciise walaa Isaaq walaa Samaroon walaa Daarood cid loo roon yahay ummadda reer Jabuuti walaa Suudaan walaa Carab cid loo roon yahay male marka waxaan ku sheegay Cabdiraxmaan Boore haddaad dabinkooga ugu dhici iyo haddaad ka badbaadi aday ku taala laakiin mid baa ku digayaan ummadda reer Jabuuti ha ku noqon nabaraan dawlahayn annaga ha nagu noqon nabaraan dawlahayn adiga hadday kula heshiiyaan ay ku rogrogonayaan siday doonaan ka yeelayaan aday ku jirtaa laakiin seenka siyaasadda ayaan soo fariisano Ismaaciil u footeeyaan idin orani taa waad ku ceeboobiyo ku talagal haddii kale Ismaaciil baa ni kursigu wareejinayo kursi baan hananaya taana waad ku hungoobiyo ku talagal waayo kursigu ummadda reer Jabuuti cidda ay raali ka tahay baa ku fadhiisanaya haddeed isku dhiibkii aftuubkii u dhamaaday laakiin adigu dabinuun ha ku dhicin adigu dabinka lagu dhigay ha ku dhicin waayo hortaajira halkuu maray waad arkaysaa Soomaalidu waxay tiraa walaalkii loo xuriyo wadna soo qoyso aawa Yaasiin Allah u naxariiste balan baa lala galay aakhirkiina sidii loo galay waad garan aawa Axmed Diini balan baa lala galay Allah u naxariiste maafish aawa USNT maafish dad media u dambeeyaan leeydi Umar Cilmi Khayr muxuu idin lahaa muxuu idin yiri maalintii waa kii runta idin sheegay leeydi ma balan ma galo buu leeydi Umar waa yada way caalankan iyo ciidan maanta uu ina Umar doonaya caaqo inuu isagu gooni u yeeshay waa ragii soo dhiciyay Faransiisku u qaatay 17 sanadood ugu xidhnaa jeelash isaga Umar Cismaan Raabi Allah u naxariiste Umar Cismaan Raabina isagoo ciilan buu ka tagay Maxamed Axmed Ciise waa kuwii qoorta ka jabiyay ee gacantooda ku dilay aaway ragii wadankan u soo halgamay u soo dhintay maafish xabad caada iska joogto meelo hal ku limaarsan oo baqaysa
hayade aw ballantuu gala ballan ma gala de buufis buu qaba ballan idinla gali maayo ballan darana waa diin daro marka waxa kuu sheegaya ballanta ay taa baraleel ku xirayso ay daaradaada ku fadhido waxbaa lagu maleegayaa waa lagu maleegayaa de adu haddaad maleega raalli ka tahay cabdiraxmaan booro anagu shaqo kugumali qaranka reer jabuutina shaqo kugumale nin baa mushtaraatay baa mushtarkaagii ku eedano waa simple baa mushtarkaagii ku eedano oo dadkan masaakiinta ah ee la ciilay waxbaa horboodin maanta Yoonis Muuse isa sasab maanta kaale Cafar isa sasab maanta fuurlabaha la isa sasabo maanta kol boqolaha la isa sasabo waa markay dal leeyihiin way fashilan yihiin de kuriya laba naas way fashilan yihiin meelay wax ka soo qabtaan beelay waa kuwa daala dhacaya waligood baa daala dhacaan daala dhaca daayiman abad ku ognaho anaguna iskaga kaxaynayno iska rogaynaa hiriyada ciid ay ixtiraam u leeyihiin sharaf u leeyihiin dantooda ahayn waa reer musuq ku yimid kolkii hore wuxuu ku yimid gurguurad ma wuxuu ku durduru ku yimid maanta wuxuu doonayaa gurguurad inuu ku fuulade fuuli maayade gurguuradka miyuu ku gaari wax maanta ma gaarayade waa marad garan weydiyo marad gaari weyday maanta waad gaari weyday waad garan laaday maanta waad garan laadahay gaarina maysid gaarina maysid kursi dambood fadhiisanaysa reer Jabuuti kugu aaminayaan iyo kalsoonina ma jirto caaq Ismaaciil khaynimadaadii dilkaagii dhacaagii boobkaagii dulmigaagii shoomeerintayadii carruurtayadii guryahay wada fadhiyaan maca dibloomkoogii kuwiinina iyagoon dibloom lahayn baad meelaha u sarreysa ku casuntaan taayaa yeelayade dalka shaqadiisa iyo maalkiisa carruurtayada iyo ummadayada uu ka badan yahay aad goonnida u yeelateen ee carruuraha iyagii guryaha ku wada xidhan yihiin taamaan kaa yeelaynaa de annagu kaama yeelayno waanan ku diidnay ku dooni mayno no sankia monda haddaad afka kala baqdeen idinku inaad tidhaahiin sankia monda annagu waxaan ku leenahay no ku talagal ma soo noqonaysid taa waan ii sheegayaa guul waxaad doonaysaa maalin walba inaad maaragtay dalkan iyo dadkan siaad doonta u yeelato been baad shalay sheegto waxaad tihi aeroboor Ismaaciil Xasan Guuleed iyo Allah u naxariistay Axmed Diini baan dhisaya Allah naxariistoodii janna Allah ka waraabiye aeroboorradii de waa been iyo bidii waa been waa nin baabla leeydi de reer Jabuuti waa been waxay isku soo garbinayaan ay gaadada isku saarayaan kuriya laba naas xaafadan kuriya laba naas ee hara jaan fadhida waa been waxay gaadada isku saarayaan isku garbinayaan ay nala hor imanayaan inaga ee kama yeelayna anagu aeroboorradii aad sheegaysa caaq Ismaaciil waa beente maantana dabeer joog buu yiri dhuun baan ka furayaa batroolka oo qoladii kilalkii shanaad waa kuwan wada qayliya yeelay batroolka iyagu u soo dhigtay waa arintooda de waxooga iyaga leh kilalka shanaad ma wajibaad u haysaa ma wanaag baad u dhigatay shalay malaskii saaxiibka ahaa ee halagmay Saudigi shabaglaha ugu guraya carruurta yaryar ee masaakiinta ee bacadlaha Jabuuti ka shaqaysata ee doonaysa waa mintid waa dawladdiid ee u garda duubtay imise curad cunay imise caruur la waayay imise komisariyaga iyagoo sakaraada laga saaro la aasay tiimiya lagu iloobay de seed batroolkooda u hungurayn de gashi baa kugu maqane godab iyo gar eexaad mar walba u maashaaye kilalka shanaad de waxooga iyaga leh media u dambeeyaa leedo shalay habli yaryaraaye deezamara dismaaga lagu kufsaday ee labaalaha maaragtay sharci ninka la yiraaha ee gabadha yarada aqalka Cabdilaahi Cabdi magafe gurigiisa ka shaqeynaysa naagta Cabdilaahi Cabdi la shirqoolka ku jirtay ee sheekadii dambe basteenu jaamac dhago idin dambe bas jaamac dhago I feel sorry for him daarood ma matalade jaamac dhago kulbu warqadaha ku haysta de nin daaroodi laba sinji ma yeesho I feel sorry for him taa waan ka xumahay jaamac waan ka xumahay ma matali kartid daaroodadu adigu ismatal cida tahay adu isdoondoon marka kilalka shanaad batroolkiisa qoryaha aad u guranayso waa kuwii shalay aad meel la soo dhiibaysay ee bacadka warayseed galiilo ugu dhiibaysay iyagoo shabaglaha ku jira caruurii yaryaraay masaakiinta ahaa ee soo cararay ee naf ku yimid ee bacadlaha ka shaqaysanayay ee inay qadaan iyo inay wax cuneen Ilaahay og yahay marka maada hadli karo ummadda Soomaaliyeed wuxuu sheegi karaa amba wuxuu hungurayn kara caaq Ismaaciil xaq bay ku joogaan wuxuu inay ka hadlaan iyagaana le batroolkooga shaqana kuma yeelan kariso doonta aad samaysatay adigu halkaad ka keenay batroolada yaqaan South Sudan baan u qoriyo guran biiru beenbo naga dhaadhicin batroolka South Sudan ku yahay South Sudan halkeed ka soo gaari bal aqliga wax aqli gala dadka la hor yimaada caaq Ismaaciil Somaliland sidaas leeg imisaad inanko inamadooda ku haysata ilaa yoom hada jeelka
oo waa xag jir inta tirto 7 sanadood maanta kuugu jira 4 sanadood kuugu jira 5 sanadood kuugu jira kii xoolaha dhacayna oo Hargeysa taxtaxinaya oo soo qabanayn xamar lamid aye maxaad orande hayshooyo wax isku fal umada Soomaaliyeed adiga mushkilad iyo masiibo ku oo sida u walaaqay ka haro daa oo dhulka dhigtaadii baa dumisay taadii baa dumisay oo xalili kari laadahay xaalka dalkaaga yaala ayaad xalili kari laadahay xal ma haysid xilka wareejiyo na dhaaf waxba noo ma haysid dariskana ha nagu dirin dadkani waa dadkaad ciishay ee iyagoo ka tiinadaysan oo waliba Djibouti lagu dhex tortiireyn jiray kilalka shanaad dhalinyaradooda ma inaan lagu ogeyn baad moodaysa waa la wada ogyahay sawirkii shalay dabeer joog markuu furayayna waad arki doontiin wasiirkii awqaafta iyo nin Umar Maxamuud cilmi la yiraahdo sida gacanta iskugu haystaan bal maxay isku sheegayeen Ilaahay baan ugu dhaarshay waxbay xamanayeen wadaad buuna sheeganaya labada ninba wasiirka awqaafta muumin waa waalanay ma igu wadan sida iyo maartay ninkan kale Umar Maxamuud cilmi oo ministerkiisa ka tirsan labadaas waxay shuqlayeen shiilayeen inuu garan maayo sawirkaad ka arki doontiin gacmaha sida yar iskugu dhiibay waa qeyr mas'uulde sawirada inayna qabaneen bay moodayaan malaha duulku waa waxa soo miirada waxa xilka loo dhiibay mas'uulka ka dalka waa wada waxa waan waalanay ma igu wadan sida waa majnuun mulabas waa wada nooca waa wada handicapka dawlad tiri aniga ma hayna cid kale yaanay noolaan kuwan hortood lama arag ee umada masaakiinta ee dhiig iyo dhagarta ka gashay annaga kugu marxaati furayna caaq Ismaaciil kulana hortaagan wixii aad dadka ka gashay wixii dariska aad ka gashay wixii dalkaaga aad ka gashay intaba fidnad baad ku tahay dalka iyo dadka fidnad baad ku tahay dariska ka fadhiiso umada nabadgeli cid aad u roontahay ma lehe oo dadka dhaaf waxba nooma soo wadid waxyeeladaada na dhaaf oo is wada daba gala kuriya laba naas socda dawlad wada qurxin leh oo kuriya laba naas oo cuqdadaysan oo masiibo ma aan wanaag bashaqo ku lahayn waxaan salaamayaa umada reer Djibouti daliya dibad waxaan salaamayaa caaq Ismaaciil oo daalinka u weyna oo dalkan iyo dadkan dulmay waxaan salaamayaa eta baraleel oo tobroclaamay kumbani kuleelihi dayacan dalka iyo dadka u daran nafta saarayda ee sixirka sirmooday in habeen seexanayso malhaadsanay waxa xun ku foogan waqti kooban baa ku haray maxkamadaha lagu horgeyn saliil duusna waa tagaysiin labadiino isbarkan waxaan salaamayaa dawladdan dulmiga iyo dhibaatada dadkeeda ku haysa raaliga ka ah ee jeebkooda u fadhida meesha salaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh